kulanti wacan dhagaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dallada Sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaaliland. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. Anigoo Axmed Tifo ah ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. maantana waxaan ku eegi doonaa beeraley dhowr mar khasaare oo helay tababaro iyo suuqgeyn dalagyadii ay beerteen, muhiimadda raadiyaha uu u leeyahay dadka, iyo warbixin aan idinkaga hayno dadkii ay abaarta ka laysay xoolaha oo nolol xumo ku haysata kaamka ugu weyn ee barakacayaasha Kismaayo ay ku nool yihiin. aan ku bilownay 13 February sanad walba dunida waxaa laga xusaa maalinta raadiyaha adduunka tan iyo 2011 markaas oo ay qaramada midoobay oo aqoonsatay. waana maalin sida ay sheegayso hay-adda qaramada midoobay ee tacliinta ee UNESCO loo asteeyay in la maamuuso. ujeedada ayaa ah in la horumariyo xiriirada caalamiga ah ee u dhexeeya shirkadaha warbaahineed isla markaana la dhiirigeliyo idaacadaha si ay bulshada ugu shaqeeyaan una helaan macluumaadka ay u baahan yihiin, ayna u muujiyaan aragtidooda iyaga oo idaacadaha adeegsanaya. dalkeenna waxa uu raadiyaha markii ugu horreysay soo gaaray 1943 xilligaas oo la maqlay Radio Hargeysa. Radio Muqdisho oo xigtay ayaa iyadana la dhageystay 1951. waqtigaas dalka waxaa gacanta ku hayay gumaystayaashii dalalka Ingiriiska iyo Talyaaniga. haddaba xoghayaha dallada Sooma Maxamed Cusmaan Makaraan ayaan ka wareysanay ahmiyadda raadiyaha uu u leeyahay bulshada Soomaaliyeed. waa maasan tahay ahmiyadda uu leeyahay raadiyaha dadka waxaa waayeen waad la socotaa dalkeena Soomaaliya 100% internet lama wada haysto, 100% maxaa la yiraahdaa television lama haysto, wargeys wanaagsan oo dadkii si wanaagsan u gaarayeen dalka hadda kama soo baxo oo dadka dhan wada gaari karo. dadka dhanna saasoo ka taasitaan dadka dhanna ma yihiin dad wax wada akhrin karo. marka ahmiyadda uu leeyahay waxaa waa in raadiyaha maalin waliba oo akhbaar qofka gaarsiiyo, sida aad la socoto qofka isagoo gurigiisa uu television ku jiro ama internet heli karo ayuu wali dhageystaa raadiyaha, maadaama raadiyaha uu yahay meesha xogta ugu badan laga helo Soomaaliya, akhbaaraadka kala duwan lagu soo gudbiyo, adeegyada waxbarashada, caafimaadka oo inta badan barnaamijyo lagaga hadlo raadiyaasha laga sii deeyo. taas ayaa koow ka ah ahmiyadda uu u leeyahay xilligan dadka Soomaaliyeed. waayahay maxaa caqabada oo ay wajahayaan xilligan wariyaasha ka shaqeeya? waxa ay wajahayaan ama caqabadaha kala duwan oo ay xilligan wajahayaan waxaa ka mid ah in aanan sidii la rabay wariyaasha raadiyaha ka shaqeeya loo soo dhaweynaynin oo ay dadka magaalooyinka ku dhaqan ay mudnaanta siinayaan dadka ka shaqeeya telefishinada ama social media. taas waxay caqabad ku tahay dadka ka shaqeeya raadiyaha. raadiyuhu wuxuu ka dhageysi badan yahay ama ka dhageystayaal badan yahay ama ka daawashay telefishinada iyo social media. tusaale magaalooyinka Muqdisho, tuulooyinka iyo deegaanada ku dhow ee labada shabeelle ayaa ah kuwa inta badan aad looga dhageysto iyo degmooyinka fogfog. marka laga tago degmooyinkan oo intooda badan xitaa qaarkood laga sii dhageysto oo markii aad meelaha marayso aad maqlayso wararka kala duwan ee idaacadaha ka soo baxo. marka caqabadaha xilligan wajihi karo waxaa ka mid ah sidoo kale in meelaha xarumaha dowladda iyo saldhigyada booliiska iyo markuu kiis dhaco qofka wariyaha uu rabo inuu idaacadda ka shaqeeyo inuu dabagalo in ay inta badan aysan ka jawaabin taleefanadaas oo ay caqabad ku tahay, loona baahan yahay in laamaha ammaanka haddii wax dhacaan oo warbaahinta u baahan tahay xog rasmi ah inay ka jawaabaan, maadaama raadiyaashuna ay yihiin dadka ugu horeeya ee la hadla dadka miyiga ah iyo kuwa magaalada intaba. waa gartay ma helaan bulshada Soomaaliyeed macluumaadka ay uga baahan yihiin wariyaasha ka shaqeeya raadiyaha? inta badan wariyaasha marna way helaan macluumaadka ay uga baahan yihiin bulshada dhageysato ama bulshada deegaanada kala duwan ku nool, mararka qaarna way waayaan. waana caqabad qayb ka mid ah shaqada raadiyaha oo ku sii socon lahaa. inta badan markii warbaahinta ay ka shaqeynayso dal burburay waxaa ka jira dhibaatooyin kala duwan. waxaa dhici karta markii aad microphone u taagto qof ka mid ah bulshada deegaanka inuu isagoo khatar ka baqaay in waxyeello soo gaarto uu diido xogtii laga rabay, lagana yaabo inuu yahay qofka xogta rasmiga haayo ee xogtaasi sheegi karo. marka mararka qaar waxaa dhacday in wariyaashu aysan bulshada ka helin xogtii ay ka rabeen, laakiin waxaa wanaagsanaa lahayd in bulshadu ay fahmaan muhiimadda raadiyahan uu u leeyahay dalka
maadaama sida raadiyaha lala socdo Soomaaliya ka soo qayb qaatay soo kabashada iyo soo nooleynta nabadda Soomaaliya oo la ogaay muddo dheer inay burbursaneed dhibaatooyin fara badan ay ka jireen dadka Soomaaliyeedna ay kalsooni weyn ku qabeen idaacadihii dalka ka soo shaqeeyay waayahay marka raadiyaha sida ay tahay ma uga faa'iideystaan mas'uuliyiinta dowladda dhexe iyo haddii ay ahaan lahayd maamul goboleedyada dalka ka jira ilaa hadda sidii la rabay ugama faa'iideystaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka raadiyaha mararka qaar raadiyaha waxyaabaha waxaa loo isticmaali karaa fariimaha caafimaadka oo kaleete tusaale ahaan dalka markii uu COVID-19 uu ka dilaacay oo Soomaaliya la kala xiray waxay ahayd idaacadda midda kaliya oo miyiga iyo magaalada Soomaaliyeed gaarsiin kartay tusaale ahaan fariinta laga deeyay magaalada Muqdisho ayaa waxa laga dhageysanayay magaalada Boosaaso waxaana sababtay daladan ay ku midaysan yihiin idaacadahan ayaa waxay ahayd mid lagu wada ballamay in dowladda dhexe iyo dalka oo dhan loo gurmado maadaama xaalad caafimaad la galay waxaana ahayd barnaamijyada la sameynayay iyo doodaha kuwa la xiriira sida koronaha la isaga ilaaliyo wax looga qaban karo dadka suusan ugu faafin dadka inay inta loo baahan yahay inay kala sigtaan waxay ahayd wax laga rabay inay dowladda iyo maamul goboleedyada maadaama iyaga ay yihiin mas'uuliyiintii dalka inay ka faa'iideystaan laakiin sida la rabay uma faa'iideysan oo waxay ahayd inay waxyaabo badan oo loo baahnaa in dadka la gaarsiiyo in la marsiyo ahayd laakiin waxaan rajaynayaa in dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ay fahmi doonaan muhiimadda raadiyaha uu leeyahay maadaama raadiyaha dadka ku dhaqan gudaha magaalooyinka iyo baadiyaha laga dhageysto dadka Soomaaliyeed sida aan la soconana dad aad u jecel ma aha inay wax akhriyaan ay waxay jecel yihiin wax inay dhageystaan waana sababta dhageysiga raadiyaha badis waa gartay waxaan soo gaarnay gabagabadii waraysigan xogaya makaraan sidaad og tahay Soomaaliya weli raadiyaha waxa uu ku leeyahay dhageystayaal ku xiran bal ka waran xilligan oo ay aad u jiraan TV-yo iyo internetka iyo sidoo kale mobilada caaqilka ah saameyn ma ku yeelatay in la dhageysto raadiyaha wax saameyn ah oo hadda weyn kuma yeelan laakiin waa laga yaabaa in mustaqbalka uu saameyn ku yeesho maadaama laga yaabo in meel kasta oo Soomaaliyeed laga helo koronto iyo internet oo dalka hadda uu soo hagaagaya laga yaabay markaas waxyaabo badan ayaa ka mid ah in dhulka miyiga ah ee fog aragtida kala duwan dadweynaha ay ka bixinayaan waxaas oo dhan waxay noqotay in raadiyaha uu gaaro tan labaad dadka Soomaaliyeed social media inta badan muhiimad gaar ah oo meelaha baadiyaha iyo telefishinka iyo meelahaas oo kale ma tagi karaan laakiin raadiyaha laga daara magaalada Muqdisho waxa laga yaabaa in laga dhageysto labada shabeelle deegaano ka tirsan iyo tuulooyin taas ayaana sababaysa in raadiyaha wali uu ka sii horeeyo aaladda telefishinka iyo aaladda social media laakiin raadiyaha sida aan qiyaasayo ilaa iyo 25 sano ay soo socoto waxa uu noqon doonaa raadiyaha inuu hogaamiyo marka waxyaabaha si sababa inuu raadiyaha sii jira ayaa taas ah marka saameyn xoogan oo hadda gaar ahna kuma yeelan karaan sidan aniga isleeyahay waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cusmaan makaraan xoghayaha guud ee dalladda warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma waa kaaga mahadcelinayna waqtigaaga beeraleyda ku nool degmada Wallaweyn iyo deegaanada kale ee hoos yimaada oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa helay tababar iyo wacyigelin ku saabsan kor u qaadida wax soo saarka beerahooda iyo waqtiga ku habboon ay dalagyadu beeran karaan waxaa beeraleyda laga caawiyay abuurka daawada iyo suuqgeynta haddii ay dalagyadu u soo go'aan iyada oo laga qaadayo lacago aan badnayn sanadkii hawshan dadka beeraleyda ah waxaa u qabanaya dallad ay ku midaysan yihiin oo ay sheegeen inay dhowr mar khasaaro kaga badbaadeen inta ay ka tirsan yihiin faa'iido badanna ay u soo kordhisay maxamed cabdiraxmaan oo ku sugan Wallaweyn ayaa soo jeedinaya warbixin ka hadlaysa dadka beeraleyda ah ee ku nool degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose qaarkood ayaa ka badbaaday khasaarihii ku imaan jiray beertooda kadib wacyigelin iyo tababar badan oo ay ka heleen aqoon-yahano ku wanaagsan beeraha kuwaas oo ku midoobay dallad magaceeda la yiraahdo Durdur Ismaaciil Rooble oo leh beer 28 hektar ayaa sheegay in dalladan inta uusan soo gelin uu la kulmay laba fasal khasaare soo gaaray beertiisa kadib abaaray ayaxa oo si daran u xalufiyay beertiisa isagana ay xitaa ku
adkaatay inuu helo buufin iyo abuur wanaagsan maadaama uu anyaxa korokoro uu kaga tegay beerta. waxa uu tilmaamay in tababarro ay siiyeen dallada durdur bishii Julaayo ee sanadkii hore ay ka saaciday inuu helo abuur ku habboon beertiisa, isaga oo xitaa lagula taliyay nooca dalagga ee u wanaagsan inuu beerto, taas oo keentay in ugu dambeyn uu suuq helo sisintii uu beeray oo markii hore uu ku adkaa inuu suuq helo. Ismaaciil oo in ka badan 20 sano ahaa beeraley ayaa dallada durdur ku biiray sanadkii 2020 kadib markii uu rag saaxiibadii u sheegeen inay jirto fursad u wanaagsan beertiisa oo la helayo abuurka, buufinta, talooyin iyo tababaro la xiriira beerashada. khidmad yarna laga rabo sanadkii, isagana uu go'aansaday inuu ka mid noqdo maadaama uu u arkay mid u fiican wax soo saarkiisa. barnaamijkan dallada dadka faa'iiday waa jiraan dad oo markii hore lahaa hal beer kaliya oo adi macnaa ilaa 30 geed amal ah ayaa macnaa hawaaye markii ay laba fasal amal isugu xigta ay macnaa hawaaye meesha wax fiican uga soo baxay. beerahoodii beero ku darsadeen macnaa 30 geed meeshii uu ka tacbi jiray hadda dadaa 60 geed tacbooda. dallada waxaan ka faa'iidnay waxayna bartay macnaa hawaaye beerta in macnaa mar waliba waxa ay u baahan tahay macnaa la sameeyo in kushiimo la siiyo, in la siiyo daawooyin oo macnaa dilaya macnaa cayayaanka dilaya. taasna macnaa waxaan ka aragnay in dalagii macnaa hawaaye beerta miisaankii markii hore ay keeni jirtay miisaan ka badan in ay macnaa hawaaye ay keen. gudoomiye ku-xigeenka dallada durdur Mustaf Aadan Xasan ayaa Sooma u sheegay in tan iyo 2019 ay ka wadeen hawshan la xiriirta badbaadinta dalagyada beeraleyda degmada Walaweyn iyo deegaanada hoos yimaada. waxa uu sheegay in marka hore ay beeraleyda ku soo biiraan iskaashato kadibna ay iyagu hoos timaado. waxa uu tilmaamay inay haystaan khubaro beeraha ah oo dadka u sheegay sida ay beertooda u yeelan karto wax soo saar fiican, sidoo kalena ay u sheegaan xulista dalagyada la beerayo iyo xilliga la joogo hadba midka ku habboon, dawooyin caawinaya abuurka ilaa iibgeynta dalagyada ay soo saartaan xubnaha ku midoobay dalladan. Mustaf ayaa xusay in ka dhaadhicinta dadka inay ku soo biiraan ay waqti badan ku qaadatay maadaama aysan dadku deegaanka aysan horey u arkin dallad sidan ah, balse dadka ugu badan oo ay markii hore xoogga saareen ay ahaayeen dhalinyarada beeraha ka shaqeeya oo u fududeeyay in ay dadka waaweyn gaarsiiyaan fariintooda. waxa uu sheegay in dadka beeraleyda ah marka uu soo go'o dalagyada ay beerteen ay u sameeyaan suuqgeyn maadaama ay iyagu ku xiran yihiin ganacsato jooga magaalooyinka dalka oo ay ka mid tahay Muqdisho, iyagoo aan dadka gelin safar rajo wanaagsan ay ka qabaan in gobolada kale ee dalka ay gaarsiiyaan adeegan. guddi kormeer ay leedahay, guddi maaliyad ay leedahay, guddi iibgeyn ay leedahay, 3 guddi ay leedahay beerta. mustaqbalka rajo waxaan leenahay in hay-adaha ayna soo aqoonsan doonaan, ayna soo caawi doonaan. macnaha sida hadda oo kale waxaan ugu yar makiinadihii aan ugu yar makiinada bannaanka isticmaalnaa. maxamed shariif iyo qoyskiisa oo dhowr iyo 10 sano ku tiirsanaa beer ay leeyihiin ayaa aad ugu faraxsan inuu helo tababar noocan ah markii ugu horeysay noloshiisa inta uu shaqadan qabanayo. waxa uu tilmaamay in waxyaabo uu isaga caadi ka dhigan jiray loo sheegay inay dhibaato ku yihiin bixitaanka beerta, taasoo uu joojiyay bishii Maarso ee sanadkii 2020 kadib tababar u socday muddo 4 maalin ah. waxa uu xusay maxamed in hadda ay dareemayaan isbedel wax soo saar fiican ah, laakiin weli waxa uu tabayaa waxyaabo ay ka mid yihiin matoorka biyaha oo muhiim u ah beeraleyda maadaama ay hadda ku tiirsan yihiin kaliya xilli roobaadka. والله انت هذا نسكبير نكو حرمنا اسبدل حتى انت انا نسكبير اسبدل فايل ارغمنا صوبته واي انا نفترك بدات نسي فائده يوي صوبته سيده مركز دلقيده اللي انت اباو سيده من برنامج ده مركز ميلاس لوكسيا برنامج واسو قوايا سيده ولا لينشل استراو انا نفترك بمنا قبرت بين كدخ qaado mena. weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wadaagga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya. dadkii ay saameeyeen abaaraha ka jira gobolka Jubbada Hoose ee deegaansaday magaalada Kismaayo ee gobolkaasi ayaa xilligan wajahaya nolol xumo ku haysata halka ay degeen. hoy la'aan, shaqo la'aan iyo gargaar aan weli gaarin ayaa dadkan isugu darsamay, iyadoo ay u sii dheer tahay waxbarasho la'aan haysata carruurta ay dhaleen oo dugsiyo hore u dhigan jiray. Cabdullaahi Cabdi Xakiin oo Kismaayo jooga ayaa ku eegaya warbixin ka hadlaysa.
boqolaal qoys oo ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada maamulka Jubbaland ayaa hooyilaan waxbarasho la'aan, cunno yari iyo biyo yari ku wajahaya xeryo barakacyaal oo ku yaala duleedka magaalada Kismaayo, halkaasi oo ay soo gaareen labadii bilood ee ugu dambeeyay. Niila Cabdi Aadan oo ka mid ah dadka deegaanka Laanabaar oo hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ee abaartu ka dishay 26 neef oo ari ah iyo 27 neef oo lo ah ayaa soo gaaray kaamka Kulmiye horaantii bishii Janaayo ee sanadkan. Waxa uu tilmaamay in dhibaatada hooyila'aanta iyo cunno xumada ay ugu darsantay in carruurtiisa oo qaarkood ay dhiganayeen dugsi quraan aysan hadda haysan meel ay wax ka bartaan. Niile oo ka mid ah dadka ay sida xooggan abaartu u saamaysay ayaa sheegay inuusan awoodin in carruurtiisa uu geeyo iskuul. Waxa uu intaasi ku daray inuu la daalaadhacayo sidii uu u heli lahaa nolol maalmeedka qoyskiisa, ayna ku adkaatay in carruurtiisa iskuul ay helaan. Niila hadda ma hayo wax shaqo ah, qoyskiisuna waxa ay ku tiirsan yihiin xaaskiisa oo dadka deegaanka u soo dhaqda dharka, maalintiina ka hesha $2 ilaa $3, iyadoo mararka qaar ay soo weydo oo aan reerka dab loo shidin. Kaamka Kulmiye oo hadda degan yahay aabba Niila ayaa qoyskiisu dadka kala siman yahay waxbarasho la'aanta haysata carruurtooda, waxaana uu codsaday in dadka wax haysta ay gacan qabtaan. maya waxbarasho hadda geey ma leh, waa u baahan yihiin waxbarashana. kulley ilaah maxadle, kulley waa sida ilaahay qadari. kuubu kibir iyo dhisheeg agtiisa ku soo barakacne, hoolo wixii qabnay waa naga dhammaadeen. maanta iriideeda wax anaga haysana ma jirta. waa u baahana inuu noo soo gargaaro. Gudoomiyaha kaamka Kulmiye ee magaalada Kismaayo, Nimco Xaashi Cismaan, ayaa sheegtay inay soo gaareen labadii bilood ee la soo dhaafay 12 qoys oo cusub oo ka kala yimid Buucaale, Janaay Cabdalle, Haraawi iyo Laanabaar, oo ay ka soo carareen abaar iyo colaad isbiirsatay. Waxa ay tilmaantay in ka maamul ahaan iyaga iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay dadka qaarkood ka caawiyeen inay helaan aqallo cusub, halka qoysaska kalena ay hadda dulsaar ku yihiin kuwii horay u sii deganaa kaamka. Nimco ayaa xustay in qayladhaan ay u dirtay cid kasta oo ay arrintan khusayso haddii ay noqoto dowladda iyo hay-adaha si loo taageero dadka ay abaartu cayrtaysay ee Kismaayo ku soo barakacay, kuwaasi oo aan haysan nolol iyo waxbarasho toona. dadkan waxbarashay u baahan yihiin, cunnadii bay u baahan yihiin, biyihii bay u baahan yihiin, hoygii bay u baahan yihiin, dad aad u dhibaataysan. Xaliime Aadan Maxamed waxa ay ka mid tahay dadka ay abaartu saamaysay. waa beeraley roob la'aan haysay muddo 2 sano ah ayaa sababtay in ay ka soo cararto deegaanka Haraawa oo beerihii ay wax ka soo bixi waayeen. waxa ay sidoo kale sheegtay in roob la'aantu ay ugu darsantay colaad ka jirtay halkii ay ku noolaayeen, maadaama ay u cabsadeen inay waxyeello ka soo gaarto dirirta, kadibna ay go'aansadeen inay ka soo tagaan. waxa ay tilmaantay beerteeda oo 3 hektar ahayd aysan ka soo go'in wax dalag ah 2 sano ee la soo dhaafay, maadaama wax soo saarka deegaanka ay ku noolayd oo ku tiirsanaa roobka. Xaliime iyo qoyskeeda ayaa muddo 4 maalin ah waddada ku soo jiray, iyagoo ka soo tegay xitaa qayb ka mid a alaabahoodii guriga u yaallay oo ay qaadi waayeen. waxa ay xustay in ku dhowaad 10 maalin oo ay kaamka ku sugan yihiin ay dulsaar ku yihiin reere kale oo ka soo horreeyey. annagoo wareersan oo markas soo degno oo meel aan ku tegin aan lacasanahay, maamadan ayna qabatay ee boos iyo cajaf iyo waxa iyo gacan qabad xoog leh noo suubisay. hadda jaqafkan sidaas darteeda u dhisana ilmaha uga xareysan, ilmihii waxbarasho la'aan. Nimco Xaashi Cismaan, gudoomiyaha kaamka Kulmiye oo ka hadashay xaaladda barakacyaasha, ayaa sheegtay in kaamka ay horay u buux dhaafiyeen dad barakacyaal ah, isla markaana hadda ay soo gaareen dad ka soo cararay abaaraha, kuwaasi oo culays ku sii ah xaaladdii nololeed ee kaamka ka jirtay. Gudoomiye Nimco ayaa dhinaca kale sheegtay in dadkan ay abaartu cayrtaysay ee aad u dhibaataysan yihiin oo xitaa aysan haysan dhar iyo kaba wax la cuna iska daaye. Gudoomiyuhu waxa ay sheegtay in ay ku dadaaleen bal in la helo meel ay dadku seexdaan iyo waxa ay cunaan inta xaalku isbedelayo. dadka aanoo baahidooda wada dabooli karin, inii aan meelahay biyaha ka soo dhaansan lahaayeen. hadda tusaale ahaan wadkaas dadkaasaa ka mid ahaa, maamada dhabarka jeergaanka biyaha ku wadaa ka mid ah dadka barakaca ee cusub ee ila soo degay. waxaan sameeyey inaan tuso meelihii biyaha ay ka dhaansan lahaayeen ayagoo aan haysanin shilin ay ku gataan. Cabdulaahi Cabdixakiin, barnaamijka wadaagga Sooma, Kismaayo.
intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tagayaa su-aasha ah muhiimad intee la-eg ayuu kuu leeyahay dhagaysiga raadiyaha nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xidhiiraya taleefannada idaacaddan mahadsanidin